waan gartay marka agshay arrimaha Soomaalida haddii aan kala hadlo Soomaaliya iyo waliba deegaanada kale ee Soomaalidu degan yihiin dadka aad bay u daawadaan aflaantaada oo loo turjumay luqadda afka Soomaaliga waxna dadka qaar ay ku yaqaanaan magaca Mr. Bond marka arintaasi maxaad ka ogtahay I didn't know anything about it to be honest. haddii aan si daacad ah kula hadlo runtii ma ogeyn in dadka Soomaalida ay daawadaan aflaanteyda marka hore waxaan leeyahay qof walba oo Soomaali ah oo i dhageysanaya sanad wanaagsan xaaladda Soomaaliya aad baan ugu warhayaa waana ku faraxsanahay in dadka Soomaalida ah ay taageeraan oo ay daawadaan aflaanta Hindiga Soomaalidu waa dad aan aad u ixtiraamo waxaan rajaynayaa inaan imaado Soomaaliya run ahaantii ma ogeyn taageerada ii hayaan Soomaalida balse waad ku mahadsan tahay inaad ii sheegtay Thank you for telling me this. waan gartay marka adigu ka shakhsi ahaan maxaad ka aaminsan tahay Soomaaliya iyo dadka Soomaalida ee daawada aflaantaada I believe it must be a great looking and a beautiful country. waxaan aaminsanahay in Soomaaliya ay tahay dal muuqaal wanaagsan oo qurux badan fadlan waxaan ka codsanayaa inaad ii soo dirto muuqaallo qurux badan oo ku saabsan Soomaaliya aad baan u jeclaan lahaa inaan arko sawirrada quruxda badan ee Soomaaliya waxaan barta Google ka daawanayay dhammaan sawirrada Soomaaliya ma malaysan kartid sida Soomaaliya u qurux badan tahay marka laga eego xeebaha waxa kaloon aad u xasuustaa in caasimaddu ay tahay Muqdisho dalkaasi waa dal aad u qurux badan If I remember, it was Mogadishu, the capital. How beautiful is your country? agshay waxyaabo inta badan ee dadku isweydiiyaan waxa kamid ah qatarta ka soo wajahdo markaad sameynayso aflaanta actionka ama aflaanta ku salaysan dagaalka marka arrimahaasi maxaad inooga sheegi kartaa Well, I do a lot of action, but kun ahaantii waan sameeyaa aflaan badan oo action ah balse inta aan filmka sameyn waxaan sameeyaa taxadar aad u badan I take a proper care before I do it. ugu dambeyntii marka